madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo oo maanta ka ambabaxay magaalada Muqdisho ayaa si weyn lagu soo dhaweeyay magaalada Dammam ee wadanka boqortooyada Sacuudi Carabiya halkaasi oo maalinta bari ah ka furmi doono shirka madaxda wadamada ku bahoobay jaamacadda Carabta. madaxweynaha dowladda Soomaaliya ayaa waxa halkaas uga sii horeeyay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya oo isagu si hor u dhacay isagay wafdi hogaaminaya halka u gaaray. agaasimaha xafiiska warfaafinta madaxtooyada mudane Cabdinuur Maxamed Axmed ayaana la hadlay qaybaha warbaahinta isagoo ku sugan gudaha boqortooyada Sacuudi Carabiya gaar ahaan magaalada Dammam. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa saaki ka soo kacay magaalada Muqdisho waxaanan soo gaarnay haatan magaalada Dammam oo bari uu ka furmi doono shir madaxeedka 9-aad ee dalalka ku bahoobay jaamacadda Carabta. ajendayaasha shirka aad u fara badan yihiin waana kuwa khuseeya dalalka ku bahoobay ururka jaamacadda Carabta ee Soomaaliya qayb ka tahay. shirka oo bari furmi doona waxaa ka horeeyay shirkii golaha wasiirada oo wasiirkan arrimaha dibadda Axmed Ciise Caawud uu ka qayb galay kaasoo lagu lafaguray ajendayaasha shirka lagu dhameystiri doona. madaxweyne Farmaajo inta uu ku sugan yahay halkaasi waxaa sidoo kale lagu wadaa inuu kulamo gaar la qaato qaar kamid ah madaxda wadamada jaamacadda Carabta ee shirkaasi ka qayb galaya. Cabdi Ciise Cabdullaahi Maxamed, Cabdi Ciise Somali Cable, magaalada Muqdisho.